Cukaash ibn Camar wuxuu ka mid ahaa dadka ugu xoog badan ee reer Quraysh. Wuxuu ahaa nin xoojiya dhaqanka jaahiliyada, wuxuuna ka mid ahaa kuwa ugu caansan ee ka soo horjeeday Islaamka. Cukaash wuxuu arkayay Islaamka inuu khatar ku yahay dhaqanka iyo awoodda Quraysh. Markii uu maqlay warka ku saabsan Islaamka, wuxuu go'aansaday inuu wax badan ka ogaado. Wuxuu u tegey Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee si uu wax badan uga soo barto Islaamka. Cukaash wuxuu ka fiirsaday xaqiiqda diinta, wuxuuna fahmay in Islaamku yahay xaqiiqda uu raadinayay. Markii uu fahmay Islaamka, Cukaash wuxuu go'aansaday inuu Islaam noqdo. Islaaminta Cukaash waxay ahayd mid cajiib ah sababtoo ah wuxuu ahaa qof ka soo horjeeday Islaamka, balse markii uu xaqiiqdu fahmay, waxa uu noqday taageero weyn oo ka mid ah saxaabadii ugu muhiimsanaa. Cukaash ibn Camar wuxuu qayb weyn ka qaatay faafinta Islaamka. Waxaa la sheegay inuu noqday qof firfircoon oo ka qayb qaatay dagaallo iyo howlaha diinta. Geeridiisii kadib, waxaa lagu xasuustaa inuu noqday tusaalaha qof ka soo horjeeday Islaamka, balse markii dambe aqbalay Islaamka oo noqday taageero weyn oo diinta faafiya. Gabagabada iyo gunaanadka qisada Cukaash ibn Camar waxay muujinaysaa sida hanuunka iyo fahamka diinta Islaamka u bedeli karto nolosha qofka. Islaaminta Cukaash waxay tusaale u tahay in qof kasta, xataa haddii uu ka soo horjeedo diinta, uu heli karo hanuun haddii uu si dhab ah u raadsado xaqiiqda. Isbeddelka Cukaash wuxuu caddeyn u yahay awoodda Islaamka ee bedeli karta qofka iyo bulshada. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qisadani.